barnaamijka qaybtiisa hore waxaan uga hadalnay wadaniyadda. wadaniyaddu waxay tahay iyo principaleskeeda iyo qawaaciddeeda. qaybtan labaad waxaan doonaynaa uga hadalno wadaniyadda iyo siyaasadda iyo saameynta ay ku leedahay mujtamaca Soomaaliyeed. waxaan ognahay wadaniyaddu inay tahay ama aynu ku qeexnay in qofku dalkiisa uu jeclaado, iyadoo weliba qaamusyada qaarkood ay leeyihiin qayb yaroo negative ku jirto oo ah qofku dalkiisa intuu jeclaado oo weliba si xad dhaaf u jeclaado ayuu wuxuu gaarsiiyay heer dalkiisu dalalka kale uu ka fiican yahay. marka nationalism waxay u yaqaanaan way waa ideolojiyad dad fara badan oo dunida ah ay aaminsan yihiin. marka saa leeyahay waxaa la leeyahay siyaasad baa saameysay oo urur isku duuban oo dhaqdhaqaaq siyaasadeed baa inta badan keena in dadku ay gaaraan xad dhaaf ah qofku inuu dalkiisa uu kala sareeyo dalalka kala dunida oo dhan. way fiican tahay dalkiisa, way fiican tahay, laakiin marka qaarkood waxaa suurtooda in qofkaas uu xad dhaafo oo uu naco wadamada kale adduunka. taasuna arrin sax ma aha. laakiin wadaniyaddu waxa weeye qofka inuu dalkiisa jeclaado, midnimadiisa, wadajirkiisa, isagoo ku dhisaya aqoonta uu leeyahay dalkiisa, hadduu dhul ahaan iyo juqraafi ahaan uu yaqaano khayraadkiisa, uu yaqaano bulshadiisa, dadkiisa ay mid u yihiin, u siman yihiin, u jecel yahay. ha yeeshee mararka qaarkood waxaad moodaa dadka qaarkood inaysan saa u fahansaneyn oo wadaniyadiiba iyo waxyaalo fara badan ay uga sokeeyaan oo laga yaabo dhibaatooyin inuu dalkiisa usoo jiido ficilo u qaado darteed. inagoo taasoo kale taas faaqidayna maxaa ku dari lahay? halkan waxaan isleeyahay waa halka loo baahan yahay in si wanaagsan tooshka loogu ifiyo. wadaniyadda iyo siyaasadda iyo saameynta ay Soomaalidu ku leedahay wax badan baa ku jira halkaa. xag jirnimadu dadku hal dhinac bay ka eegaan, laakiin waxyaabo badan oo xag jir ah baa jira. tusaale ahaan diintii dad baa xag jir ku ah oo ama aaminsan keligood inay muslim yihiin, dad kale aysan muslim ahayn, hadda waa dad kale muslimiinta ah, ama keligood ay yihiin firqada ugu fiican, dadka kalena waxa anaaniyada loo yaqaan anaga iyo aniga iyo inaga. sidoo kale wadaniyaduna way soo gashaa oo dad waxay aaminsan yihiin wadaniyadu inay iyagu wadaniyiin yihiin, cidda iyaga kasoo horjeeda ama sida ay wax u wadaan aan la dhacsanayna inaysan ahayn wadaniyiin. dhinaca kale ayaa waxaa dhacda marka iyada laftigeeda xag jirin kale oo qoladaas wax uga cararta. ilaan wadani matiid baa lagu yiri, kadibna wadaniyadii buu ka cararaya. jirin baa jirta wadaniyadda ku xadgudba. taasi waxay keentaa marka dhinaca kale dadku inay wadankii nacaan oo wadaniyadda nacaan. sidoo kale waxyaabaha keena in wadaniyadda ay hoos u dhacdaan waxaa ka mid ah oo bulshadeena Soomaalida ah ku dhacay. dad shaarkii dowladda xiran oo ama askartii dowladda ah ama saas oo kale siyaasiyiin in ay wadaniyadii iyaga oo magaca isticmaalaya ay dad kale waxood ku qaataan ama ku dulmiyaan oo dhibaato ay ugu geystaan. marka inta badanna qofku meesha maaragtay dhibaatadu ka raacdo ma jeclaado. waxaa arkaysa qofku leh magaalo hebla ma jecli sababtoo ah waabaa saas isaa lagu yeelay, ama waabaa qof aan higaalanahay saas isaa lagu yeelay. marka wadaniyadda oo hoos u dhacda gaar ahaan dadkeena Soomaalida ah waxaan isleeyahay waxaa qayb ka qaata marmarka qaarkood siyaasadda baa qayb ka qaadata. waxaan isleeyahay marka dowladu waxay sameyn karaan wadaniyadda inay kor u qaadaan. tusaale ahaan
annagu hadda markii dowladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ay aasaasantay 1960kii manhajka waxbarashada waddanku ma midaysnayn. Tusaale ahaan 3 af baa wax lagu baran jiray. Afka Talyaaniga oo dhinaca koonfurta oo Talyaanigu gumaysan jiray, afka Ingiriiska oo dhinaca waqooyiga ah oo Ingiriis gumaysan jiray, iyo afka Carabiga oo maaragtay dadka wadaadada iyo culimada ugu badan ay diinta lagu baran jiray ku baran jireen diintii iyo ay dadku baran jireen. Marka ma jirin afkeenu markaa ma qornayn. taasi marka laftigeeda qayb bay waxay ka ahayd in wax midaysan oo manhaj waxbarasho ah uusan jirin. Marka iyada laftigeeda qayb bay ka ahayd in maaragtay wadaniyadii meeshii loo baahnaa aysan gaarin. laakiin hadda oo afkeeni qoran yahay wax badan ay adduunkii isu soo dhawaadeen, wax badan oo la soo arkay oo dhibaato ah oo qofku marka uu banaanka u baxo, wadanka banaanka uga baxo, uu arki karo qiimaha wadankiisa iyo dadkiisu ay lahaayeen. waan isleeyahay wax badan ayaa maaragtay ayman karaya haatan. dhinaca kalena qabyaaladu waxay ka mid tahay waxyaabaha wadaniyada hoos u dhigan. qofka oo qabiilkiisa ka jeclaada wadankiisa, taana waxay leedahay sababo waaniga daay hore mar uu soo ifiyay, oo qabiilka waa wax si aan toos ahayn loo barto, oo qofku isagoo aan qalmi bug u qaadan oo iskuul aan u tegin ayuu si wanaagsan uga baranayaa bulshada ku hareeraysan oo hooyo iyo aabe iyo walaalo iyo ilmo adeer iyo ilmo abti iyo ka baranayaa. laakiin wadaniyadii ma laha dad saas oo kale u dhisan oo maaragtay qofkii baraya ma laha. marka qabyaaladu laftigeedu waxaan is leeyahay Soomaalida caqabad weyn ayay ku tahay wadaniyada iyo dowladnimada maamulka. aad ba mahadsanta Cabdi Majiid. maxay aad mahadsan si fiican buu qeexay. markaad eegto Soomaalida maanta mar baad igi sheegay oo markii qaybtii hore in Soomaalidu meel fara badan oo kala duwan ay degan yihiin, wadamana ay ka mid yihiin in badan oo ka mid ah sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti. wadaniyad baa halkooda looga baahan yahay inay wadankoodii ka mid ahaadaan, waxbarashadiisa, systemkiisa, amnigiisa, nabadiisa, waxaas ma ka qayb qaataan, iyagoo oo dadkii asalka ahaa ee Soomaaliyeed ehelkooda ahaana jecel oo dhibkana la neceb, wanaagana la jecel. haba yaraatee ugu yaraan haddii soo u tiri karin ay tahay inay wanaag u taraan oo aysan at least hatta haddii soo wanaag u tiri karin inay dhibka ka reebtaan. Soomaaliduna saas u badan yihiin oo adduunka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo kale marka dhib ka dhaco Soomaalida inta kala dhan way la damqataa oo waa hal jeesad, waa hal jeesad ka Soomaalida. markaan ku laabano Jamhuuriyadda dhibaatooyin fara badan baa jira oo as leedahay wadaniyada way ku daciiftay Soomaalida dhexdeeda, taasoo as leedahay siyaasadda saameyn u ah oo saameynta ugu weyn ku leh. marka Cabdi Majiid, markaad halka aad ka tixraacay saameyn intee lag baan ugu yeelatay ardayda dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka Jamhuuriyadda deganaa arrintaas siyaasadda. mahadsan Cabdullaahi, waa su-aal aad iyo muhiim u ah. runtii markii wadaniyada laga sheekeynayo ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliya ku nool, ummadda Soomaaliyeed waxaa saameeyey siyaasadda ama ninka siyaasiga, oo waxaa la yidhaahdaa siyaasigu ama siyaasaddu waxay soo saartaa hogaamiye dalka hogaamin lahaa. ummadda Soomaaliyeed xilliyadii ila duriyaysa gumaystaha ha ahaado kuwii xorriyadda keenay Israel ama xisbigii laga dhalinyarada ama hogaaminadii ka horreeyay ha ahaadaane Axmed Guri iyo Sayid Maxamed Abdulla Xasan oo kale dad kale badan ba ay galaan. ummadda markasta waxaa hoggaanka u qabanayay qof ay ka muuqato macnaha midnimadii wadaniyada ay ka muuqato wax baan isku xeelinayn dadka isku wadayay. sidaa daraadeed
siyaasadda marka maanta aan ka hadlayno meesha waa ay wax ka khadrimeen ee sarta ka qoranteen waa meeshaas qofka Soomaaliga haddii qofka deegaankiisa ama reer ahaan qofka ismetelayaan markuu hadlayo uusan sax hadaf la hadal dhib uusan sheegayn markuu kursiga ku fadhiyeen uusan dowladda malab ka dhigin xukuumadda fulintu ka dadsiiyay ama sharciyan aad uusan malab ka dhigin markuu dibadda banaanka joogana uusan wixii dacdayn uusan xumaynin qofku wuxuu akhrinayaa markastaba ninka siyaasiga oo hogaamihiisa buu akhrinayaa marka Soomaaliya si aad iyo aad ba wax u saameysay wadaniyadii waxaa saameeyay siyaasiyiin dantii ummadda iyo wadaniyadii ku gaaray kaliya kursiga ma inay tagaan haba taga dhib ma lahan qofka muwaadinka ee Soomaaliya xaq buu leeyahay dalka tala u sareysan inuu qabto dastuurka ma ogola laakiin markuu meesha tago baa wadaniyadii buu ka saaraynayaa macnaha wadaniyadii mahaleeyay si isagu gaaro xukun gaar ah xukun u gaaro ama dan gaar u gaaro wuxuu dhaawacaya wadaniyadii qofkii buu ka saaraya marka wadaniyadii ka saaraya oo mid qabyaaladiisan buu ku bedelaya aad iyo aad qofka marka asaga kursigaas uu leeyahay qof ku fadhiyo uu xumaanaya marka uu banaanka joogay yimaadana markuu gudaha ku jirana qofkii banaanka joogay uu xumaanaya markuu banaanka joogay kii uga soo tagay buu haddana meesha ku xumaanaya marka asaga halbeegiisa muxuu noqday asaga halbeegiisa marka ma noqonin maxaan tari karaa maxaan soo ziyaadiyay dhaqaalaha maxaan ka qabtay adeeg bulshada maxaan ka qabtay asaga taas halbeegiisa maahan kuma xisaabtamayo marka ummadda Soomaaliyeed waxaa maraysa marka labadaas kooxood inuu ku wadaaraan qofka xaqisa ku leeyahay Soomaalidu wadani maahan Soomaalida qof fiican kama soo baxayo وطبعا دي bulshada inay wanaagsanaato asal ah sababtoo bulshada waa soo saarta hogaamiyaha buu siyaasi ka soo dhaxbaha siyaasi hogaamiyaha saddex doortaan kadib hogaamiyahaas wuxuu noqdaa wadanigii dalka macnaha geelaha meesha raqayfleysku ka daa marka waxaan isleeyahay ummadda Soomaaliyeed meesha naga qorantay oo hoogaan aad ugu walaaqnay waxa waa wadaniyada waa siyaasadda aan dhahay sababtoo ah siyaasadda ama siyaasiga wuxuu noqdaa halbeeg wadaniyada lagu cabirayo marka ilaa siyaasadii ama siyaasiga uu wanaagsanaado wadaniyadii naftigeeda waxa waa ka antaraanaysa ilaa qofku wuxuu hogaamiye ku dayan lahaa marka hogaamiye lagu dayan lahaa ilaa hadda muxuma marka waxaan leenahay wadaniyada muxume marka soo qofka markaas hogaaminta jalayo ama ummadda hormuudku u sida baa xun ama wanaagsanaan kara ama xumaan kara kaasaa marka saameynteedii si tugan si taban wuxuu saameynayaa wadaniyadii wixii lahayd asoo marka saameyn ku yeelanaya wadankii guud ahaan ama dhibaato u keenay ama saddex adaa mudan maxamed nuur cabdimajid si fiican oo qurux badan buu dhigay su'aal baa marka meesha imanaysa ka soo baxaysa garanay in dadkii aysan aad u aqoon wadaniyadii ducfi fara badan iyo taagdarri fara badan ay wadaniyadii ku timi oo qofku laga yaabo inuu dhaawac u geysto dalkiisa isagoo oo dana gaara qof wata raacaya marka cabdimajid wuxuu noo sheegay in hoggaanku uu yahay halbeegga rasmiga ah ee dadka Soomaalidu ay ku eegaan wadaniyada isagoo hadduu xukunka hayo inta kasoo horjeeda waxaa laga inuu ku yiraahdo wadani ma tihin iyaguna xumaan isaga ku xumaynayaan dalkooda u dhaawacaan markaan halkaa marayno su'aal baa imanaysa qofka Soomaaliyeed ee wadaniga ah la doonayo inuu wadaniga noqdo maxaa looga baahan yahay maxaase ku garanaynaa qofku inuu wadani yahay inuusan wadani ahayn maxaa lagu kala garan karaa qiyaaskaas waa mahadsantahay Cabdullaahi marar badan haddii aynu waqtiga Soomaalida aynu afar baan u qaybin karnaa waqti ka horeeyay xilligii xorriyadda ama madax banaanida dadka Soomaalida marka waxay ahaayeen dad kor iska dugsada laakiin nidaam dawladeed oo ay ku midaysan yihiin oo ka dhaxeeya uusan jirin marka dad iska xoolo dhaqataaba loo badnaa beeraley waa jirtay iyo dad xeebaha ku nool laakiin xoolo dhaqataa dadku u badnaayeen marka marxalad waa midaas marxaladda labaadna waa tii xornimada ama madax banaanida ilaa iyo 69kii oo dawladda raayida ay dalka Soomaaliya aan ka hadlayna si gaar ah uga jireen marka dad iska dawlad barada baa lahaa
afkuna ma qornaysan hadda kahor sheegay. Marka waxyaabo badan oo dadku ay baranayeen baa jirtay. waxaa ku xigay marxaladii saddexaad oo ahayd marxaladii ugu dheereed xilli hal xukun wadankii ka jiray oo ahayd 21 sano oo xukunkii askarta uu wadanka ka jiray. markaas ayaan oran karnaa dadka inta hadda wax xukunta Soomaalida hadda dadka hoggaanka u haya ama siyaasadda ku jira waa xilliga ama ay maaragtay si fiican u garaadsadeen ama ay xilal ama dawladda ay shaqo ka qabteen ama ay wax barteen inta hadda dadka ka hor muuqata inta ugu badan waa xilligaas. marka xilligaas wadaniyada waxaa jirtay meelaha hadda wadaniyada laga dhiso waxaa ka mid ah tusaale ahaan manaahijta iskuullada saan sheegnay dugsiyada. waxaa jirtay marka maado la oran jiray kacaanka, maadada kacaanka oo qofku uu ku jeclaanayo loogu talagalay in lagu jeclaysiiyo kacaankii markaa xukunka qabtay. marka kacaankii 69 xukunka qabsaday iyo waxyaabihii wadanka kusoo kordhiyey iyo keliya lagu baran jiray maadada. marka xoogaa wadaniyadan wuu ku jirtay dabcan laakiin maadada meesha kuma jiraan saas leeyahay ma qabato ma qaban sababtoo ah kacaanku wuxuu ahaa xukun mar yimid saanu sheegnayna xukuumadda iyo dawladdu waa kala labo. xukuumaddu way yimaadaan wayna tagaan laakiin dalku ma tago. haddii marka maadadaasi ay meesha ay kacaanka ugu jirtay ay ugu jir lahayd maado wadaniyada wadaniyadu aad ba u dhismi lahayd isleeyahay sababtoo ah iskuuladoo kale hadda subax markii la istaago heesaa la qaadi jiray. heesahaasi waxaa ku jiray heesa lagu ammaanayo kacaankii. marka uma dhigmin heesa lagu ammaanayo wadanka oo badan sida kuwa kacaanka ay u badnaayeen kuwa wadanka aad uma badnayn. marka waxaad leedahay waqti fiican iyo energy badan lama gelin wadaniyada. marka marxaladaasna taas bay ahayd 30 sano haddaan isku darno oo laftigeeda laba loo qaybin karo marna ay iska ahayd dawlad la'aan xukuumad la'aan wadankaysan ka jirin oo xukuumadu la aqoonsan yahay. 20 sano aan soo dhaafnay ay xukuumada jireen laakiin ay iska dhutinayeen. haddii aynu laba ka dhigno iyo haddii aynu mid ka dhignaba Cabdulaahiyo marxaladaas waa marxalada wax badan ay kala daateen oo manaahij kale ay wadankii soo galeen oo aragtiyo kale oo badan oo qaarkood laga yaabo in wadaniyada dhaawac ku yihiin ay jiraan. oo tusaale ahaan aragtiyaha diintu Soomaalidu waa muslim laakiin aragtiyaha diintu in badan oo kamid ah wadaniyada ma taageeriyaan. kooxaysi baa laga yaabaa inay u ama kooxaysi weeye ama waa kooxo wadamo kale ku xiran oo aragti iyo jacayl wadan kale abuuraya ama waxay leeyihiin aragti waxa weeye dad badan oo caalamka ka dhaxaysa. marka aragtidaasi waxay dad ku tahay ama ay ka soo horjeedaa oo diidaysaa aragti gaar ah oo wadan Soomaaliya la yiraahdo maaragtay wadan gaar ah Soomaaliya la jacaylkiisa iyo uhiilintiisa iyo aragtiyaha diintu qaar ka mid way diidaysaa oo waynu aragnayba. marka culeysyadaasna waxay inta badan soo kordheen wixii ka dambeeyay qaran jabkii ama burburkii qaranka ku yimid 1991 wixii ka dambeeyay ay aragtiyahaasi. maxamedow aad baa u mahadsantahay kaama goyn. waxaan joognay guntiga gabagabadii cabdi majid barnaamijka last minute baan maraynaa. waxaan maalmaha dambe nagu soo batay in qofkii hogaamiye reerkooda ah uu ka jeclaado wax walba oo ay ka mid tahay wadaniyada iyo dalkiisa
waxaa laga yahay hogaamiyahani waxaa macquula inuu saxsan yahay, waxaase kaloo macquula inuu khaldan yahay oo si gaara ta dambaana badan inuu khaldan yahay oo uu doonayo power inuu keligiis meesha ku haysto. taas waxaad moodayaanta dambe inay aada u badatay oo qofka Soomaaligu uu ku eego san hadaaya sheeganay wadaniyada hadba qofka hortaagay. waxaa laga dowladda dhexe oo tusaalaha Soomaaliya federaalka dadka taageersan intooda badan in badan oo kamid ah macnaha inay u taageersan yihiin madaxweynaha isku reertihiin ama at least waxbaa reerkiin ka soo geli karaa. halka maamul goboleedyada laftooda dadka taageersan intooda badan moodada inay u taageersan yihiin reerkaygii baa xukun haya. taasuna ay meesha ka saarayso wadaniyadii iyo dalkii awoodiisii wada jirkiisa ay dhaawacayso oo burburinayso oo shakhsiga iyo community-guna ay la burburayaan. taas adagoo oo fiirinaya maxaad kusoo gabagabeynaysaa? waa su-aal muhiim Cabdullaahi. xaqiiqdu waxay tahay oo maanta aan la noolnahay bulshadeena Soomaaliyeed ay wada arkayaan nidaamkii markii dowladnimada ay burburtay 1990 saan u sheegnayba qof kastaba dee wuxuu aaday dee danteena ku khasabtay deegaankii reerkiisa deganaayeen. kadib markii deegaankii muddo lagu maqanaayay wax gudaha dalkiisa ku rafaadiyay wax dibadda aado qurbo iska noqday. kadib markii soo laabtay oo nidaamka ugu horreeyay tuulada carto lagu soo sameeyay dalka Djibouti walaalahana waxaa lasoo hindisay halbeeg la yidhaahdo in Soomaaliya ku qaybsato 4 beelood bar ama dhahna 5 beeloodba. nidaamkaas markii qabiilada ku sareysan wuxuu keenay in aysan 5 beelood baagsa markii la soo yimaado ee gudaheedii haddana usii kala jabjabaan ama usii qaybsamaan qaybo kale hoosoo macnaha oo dhexdeedii ah. dabcan waxaa la ismooday inay xal tahay. xaqiiqda xal maahan, yani in xukunka lagu qaybsado qabeelo lagu qaybsado xal maahan, laakiin dan baa keentay. wax badan oo lagu soo gudbay, wax badan oo wanaagna waa lagu soo qabtay. sidaa daraadeed waxaan is leeyahay qofka Soomaaliga waxaa ku qasbaya hadda nool gaar ahaan dhalinyarada hadda soo kacday waxay afkaan waaqac oo saan macnaha ah. aan marka waxaan ila tahay caqabadaha nafteeda si looga gudbo waxaa loo baahnaan doonaa loo arko inaan macnaha aan ogolaano ama aan sameyn. kow waa in dalka ay ka hirgashaa nidaamka axzaabta ama ururada siyaasadda. sababtoo qofka hadda meesha ugaaska ama suldaanka ama nabadoonka ama waxaa duubabka dhaqanka meesha waxay ka aadayo markuu doonayo in macnaha xil qabto haddii laga weecin lahaa oo la tusinaa buudo kaloo macnaha xilka uu ku qaban karo isagoo soo maray macnaha jifadii beeshii dhaqanka soo mareen. طبعا waxay la tahay dad badan baa macnaha ku aad ka gudbi lahaa wadadaas oo xisbi uu ku iman lahaa xisbigaas oo leh aragti manifesto wadaniyad iyo waxqabad ah wakaa qofku jeclaan lahaa. marka meeshaas marka waxaa kasoo bixi lahaa in laga gudbo qabyaalada oo dhib ku hayso wadaniyadii. sababta hadda wadaniyadii waxaa ku xubaa qabyaaladii ilaa deegaankii tuulo hoos la tago heerkiiba jufo hoos jufo sidii loo sii kala qaybinaya. sidaa daraadeed waxaan u baahannahay kow inaan helno nidaam urur siyaasadeed aan magac ahayn laakiin ku dhisan mabaadi iyo aragti qeexo wadaniyadiisa wuxuu ka aaminsan yahay, midnimada wuxuu ka aaminsan yahay, Soomaalinimada wuxuu ka aaminsan yahay, diintiisa iyo dalkiisa iyo dowladda wuxuu ka aaminsan yahay. taa marka waxay keen lahayd qofkaan marka hadda ku indhabeelay oo ku macna xoog beelay qofkaan macnaha ilmaadeerka ay yihiin ku indhabeelay inuu macnaha weheli lahaa dad hogaamiyaal kale oo Soomaaliyeed oo ka dhex doorto Soomaali codkiisa u siiyo. laakiin hadda macna nidaamkeenu iska yahay beelaha ku qaybsan marka ninka soo xilay jufadan kursiga jufadan iyo dhaafin macnaha inta la qaadan lahayn ha xamaade macnaha ma fiicnaade waa shaqada macnaha aan kusoo gabagabay taa qorashada koor ee markii soo baxay ninkii ahaa مسلمة الكذاب ويرني بانهاي النبي حسن العسل مركي يقول كذب وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وخلفاء مسلمين تقبتي بالو يديو حال الموت ما حكوا تهدي سنة كان مسلمة وأرتان بيلو هاي والسنبي هين كان زحدهم شنو ومعناها حين حضرت كذا شيء معناها حنوفي عن بيلو عدينا marka waxaan wax soo jireenoo siyaasiga taageeraya way hawshu waxa dalka hadumiyay macnaha siyaasi reer kale haduu doon dalka u fiicnaaday u qaban lahaa aad u mahadsantahay. waxaan gaarnay guntii gabagabadii daawadayaal barnaamijkii galabta oo aan uga doodaynay mowduuca wadaniyada halka inoo joogo.